ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaani qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Ciinto oo weerar afka ah ku qaaday farmaajo iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Khilaafka beledweyne ka taagan oo sii xoogaysanaya, ciidamada dowladda oo qaraxyo culus fashiliyay, Al-Shabaab oo joojiyay dhismaha tuulada kubadda cagta ee garoonka Stadium Muqdisho laga waday, shaqaalaha gobolka Banaadir oo qarka u saaran in ay shaqo joojin sameeyaan. haddaba sababta wararkeena ayaad ku daawan doontaa. Madaxweyne Waara oo ka hadlay mashaariicda ay ka hirgeliyeen Hiiraan iyo qarax goordhow ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warkeena. Markaani u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan. sida la sheegay waxaa hakad ku yimid dhismaha lagu waday tuulada cayaaraha ee magaalada Muqdisho kadib markii Al-Shabaab ay joojiyeen sida la tilmaamay shaqadii ka socotay garoonkaasi. dad xogaala ayaa shaaciyay in Al-Shabaab ay la xiriireen dhammaan shaqaalaha dhisayay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho iyaga oo ku amray in ay ka haraan dhismaha garoonka. sidaa ayaa lagu sheegay in lagu joojiyay dhismaha ka socday tuulada cayaaraha ee Muqdisho, isla markaana shaqaalihii dhisayay ay iskaga tageen dhismaha garoonka. tani markii ay gacanta dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo celiyay garoonka Stadium Muqdisho ayaa waxay waday dadaalo lagu dhisanayo garoonka si loogu qabto ciyaaraha kala duwan ee garoonka uu ku caan ahaa. ma jirto ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhismaha ka socda garoonka Stadium Muqdisho oo lagu sheegay in Al-Shabaab ay joojiyeen, balse waxaa la sheegay in muddooyinkii dambe in heer gabagaba ah uu marayay dhismaha garoonka ka socday, balse hadda uu noqday hal bacaad lagu lisay. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay fashilay qaraxyo lagu aasay qaybo ka mid ah degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan. qaraxyada oo ahaa miino ayaa waxay saraakiishu u soo bandhigeen warbaahinta kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaanadaasi. saraakiil ka tirsan kuwa dowladda ayaa sheegay in qaraxaasi lagu aasay suuq lagu uudiyey qaadka, ayna ku guulaysteen in ay ka soo saaraan miinooyinkaasi. sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in shacabku ay la wadaageen xogta qaraxaasi, islamarkaana ay uga mahadceliyeen wada shaqaynta ay la leeyihiin ciidamada amniga. muddooyinkii dambe ayaa waxaa falal liita ku ah nabadgelyada ay ka dhacayeen degmada Buulobarde oo inta badani weeraro culus ay ku qaadaan dagaalyahanada Al-Shabaab. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhex dhigay 3 iskuul oo mid ka mid yahay mid lagu tababaro macallimiinta ka howlgala maamulada dariska ah ee Hirshabelle iyo Galmudug, halka labada kale ay yihiin iskuulo ay wax ku baranayaan ardayda ka howlgasha deegaanada maamulka oo iskugu jira dugsi dhexe iyo sare oo si lacag la'aan ah wax ku baranayaan ardayda ku nool deegaanada hoos yimaada Beledweyne. dhagax dhigistiisa dugsiyadani ayaa waxaa goobjoogayaal ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in magaalada Beledweyne ay nasiib u heshay in laga dhagax dhigo macad wax lagu baro macallimiinta ka howlgasha maamulada Galmudug iyo Hirshabelle deegaanada ay ka kooban yihiin. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay muhiimadda iskuuladani oo laba ka mid ah ay yihiin dugsiga hoose iyo sare, midna uu yahay dugsi lagu tababarayo, waxaana mashaariicdani ay yihiin kuwa muhiim gaar ah u leh bulshada Hirshabelle. dhinaca kale madaxweyne Waare ayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Cabdullaahi Goodax Barre ku wareejiyay jaamacadda Hiiraan University ee Beledweyne si ay u noqoto jaamacad ummad Soomaaliyeed qaybteeda Hiiraan, waxaana tallaabadani ay tahay mid muhiim u ah ardayda ku dhaqan guud ahaan Hirshabelle. qarax gaari lagu soo xiray ayaa goordhow waxa uu ka dhacay nawaaxiga dekedda magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa lagu soo xiray gaari sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliyeed uu leeyahay, waxa uuna ka dhacay qaraxa degmada Xamar Jajab ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. saraakiil ka tirsan hay'adda ammaanka ayaa sheegay in uu dhaawac culus soo gaaray Generaal Maxamed Dhoore. gaariga qarxay ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa Seeruf oo la tilmaamay in ay lahaayeen booliska Soomaaliyeed. ciidamo badani oo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay, iyaga oona xiray wadooyinkii soo galayay wadadaasi. waxay war ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa hadduu ay beedmo. waxaa aad u sii adkaanaya nolosha shaqaalaha dowladda hoose ee gobolka Banaadir oo aan wax lacagaha qaadan muddo dhan 3 bil, iyadoo ay wajahayaan duruufo aad u adag. shaqaalahani oo siyaabo kala duwan
ula soo xiriiray warbaahinta ayaa inoo sheegay in ay wajahayaan nolol aad u adag ayna u baahan yihiin in cabashadooda la gudbiyo. dhibaatada kale ee haysata shaqaalaha dowladda hoose iyo kuwa kaleba waxa weeye in aysan si shaacsan warbaahinta uga hadli karin oo aysan gudbi karin tabashadooda. waxay ku weynayaan shaqadooda. dhowr qof oo ka mid ah dadka aan la hadalnay ayaa waxay ka siman yihiin mushaar la'aan iyo in aysan ka hadli karin dhibkooda oo loogu hanjabayo in shaqada laga rusqayn doono haddii ay hadlaan oo ay soo bandhigaan dhibaatada ay qabaan. mushaar laga qaato gobolka Banaadir waxaa ugu dambeysay 20kii bishii Juun ee sanadkani, waxaana tan iyo markii aysan helin xuquuqda iyo mushaarka ay leeyihiin qaar badani oo ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ayaa laga saaray guryihii ay deganaayeen, halka qaar kalena ay qarka u saaran yihiin sidaas oo kale. isbeddelka maamulka gobolka Banaadir ka dhacay iyo musiibadii ka horreysay ayaa la aaminsan yahay in ay sabab u tahay dib u dhaca mushaarka oo markii hore 50kii maalmoodba mar la bixin jiray. xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in khasnada dowladda hoose aysan hadda lacag ku filan shaqaalaha ku jirin, balse ay ku jirto lacag kooban oo lagu sii wadi doono shaqada gobolka Banaadir. lama oga siday uga soo kaban doonaan dhibaatooyinka haysata shaqaalaha dowladda hoose. maamulkii cusubba qaab gaara ayuu ula dhaqmaa maadaama aysan meesha lahayn nidaam saxan oo lagu maamulayo shaqaalaha gobolka Banaadir. wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Caynte oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga RTN ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha Villa Soomaaliya isaga oo ka hadlay arrimaha ammaanka iyo siyaasadda. ugu dambeyn wuxuu soo hadal qaaday khilaafka dowladda kala dhaxeeyo maamul goboleedyada, gaar ahaan doorashooyinkii ka dhacay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Cabdiraxmaan Caynte ayaa sheegay in ay isku dhagan yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, isla markaana ay arrintani dalka u horseedayso dib u dhac. sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxda Villa Soomaaliya ay aaminsan yihiin in siyaasad lagula adkaado lagu hagi karo dalka, isla markaana ay dadka ka soo horjeeda u arkaan cadowga dowladda. madaxda dowladda federaalka waxay aaminsan yihiin siyaasad lagu kala adkaado in ay dalka ku hagaan. waxay aaminsan yihiin dadka siyaasiyiinta uga soo horjeeda inay ka adkaan karaan, waxay kale u arkaan cadowga dowladda, ayuu yiri Caynte. dhanka kale wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in uu faraha ka sii baxayo amniga dalka, isla markaana ay dowladdu ka gaabisay arrimaha nabadgelyada, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxa kale uu sheegay in al-shabaab ay bilaabeen lacaga canshuuraha oo la mid ah kuwa dowladda ay ka qaado ganacsatada Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn wuxuu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya in uu ka dhabeeyo hadalkiisii ahaa in uu noqonayo nabadoon Soomaaliyeed oo isku keena dhammaan ummadda Soomaaliyeed. madaxweynaha isaga ayaa dalka u weyn oo oday noo wada ah, si kasta oo looga aragti duwan yahay isagaa ixtiraamka iyo qabtida Soomaalinimada ku fadhiya. in uu dadka Soomaaliyeed uu madaxda u yahay, kuwa taageersan iyo kuwa aan taageersaneyn inuu iskugu yeero, sidii uu Garoowe ku yiri ee ahaa nabadoon Soomaaliyeed ayaan rabaa inaan noqdo. waxaan uga fadhinaa madaxweyne nabadoonnimadii uu ugu yaboohay caleemasaarkii madaxweyne Dani. nabadoonnimada waa mid dadka ka aragti duwan inaad qol la soo fadhiisato aad la hadasho, laakiin haddaad aaminsan tahay dowladnimada ayaa sharci ku siinaysa in aad dadka ka soo adkaatid. Soomaaliya haddii la kala adkaan karo meeshani lama soo gaareen. marka la soo kala adkaan waayo waa la isku baaba'ay. meeshaasi in noola celiyo ayaan daro ayay dalka ku tahay, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta. faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya kulamo gaar ah oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. kulamada oo ahaa kuwa xasaasi ah ayaa waxaa wada qaatay saraakiil ka socda dowladda iyo odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi. intooda badan kulamadani ayaa waxaa diiradda lagu saarayay khilaafka ka taagan Beledweyne, kaasi oo ka dhashay amar ka soo baxay dowladda oo ku aadana in ciidamo jooga magaaladaasi loo daabulo dhanka gobolka Galmudug. waxgaradka magaalada ayaa ka biyo diiday arrinkaasi, waxaana dowladda dhexe ay ku eedeeyeen in ay faragelin ku hayso arrimaha gobolka Hiiraan. wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo kulamadii xalay ayaa sheegaya in ay ku soo dhammaadeen fashil iyada oo aan la gaarin wax natiijo ah. sidoo kale ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in lagu kala tagay shirkaasi. arrimahani ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan Beledweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha Hirshabeelle oo dhankiisa kulamo gooni ah la qaatay saraakiisha qaybta 27 iyo 21 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.